qalbiga haday ilama joogo waa qisa dhaba wiliyo barashadaadi waxaan ahay bisteeyo bidhaantaada oo qora ikalay xubiyay ikalay yodanay qalbiyay ikalay samadan ku geeyo u dhigay salaano daruraha ku sahare adiguna si saradi dibto waan sigtee kumaan jabine suldaharadadi nafsiga asido abidka nafsiga sido ana samirka hidaye aida ana samirka hidaye waxa ina la jooga Mubaarak Abuukar waa wiilkaas yar oo aad arkaysaan Mubaarak waa 12 jir waxaan isleeyahay intaan ogahay waa 12 jirkii u horeeyay ee Soomaaliya heesa Mubaarak soo dhaw marka hore abriir kadhaw haye heestada maxaa la yiraahdaa heestan qaaday waxa la dhahaa siman adiga codka kor igu qaadaya heesta aad ku luqeynaysa maxaa la yiraahdaa magaceeda heesta waxa la dhahaa siman sida aad u jeedaan waa waqtigii fanka uu ku cusbaa waana 2015 aad buu u daayaraa waayahay markaan muuqaalkaas oo waxyaalaha la soo calaamadiyay kamid ahaa aan halkaas ka dhigno waxyaalaha kale ee laga calaamadiyay oo sida degdeg ah Soomaalidu u soo saareen waxa kamid ahaa habeenkii dhaweyd ee showgii farxiifiska jigjiga ka dhacay watii Soomaalida lahaayeen ninkii cawaaladeer ahaa iyo farxiifiska hawlba isku daba dhacday waxba ku misuuna aniga muuqaal baan ka sameeyay aan leeyahay waxba salag leh hadaan xasuusataan waxba salag leh waa taan lahaa inay wax salag leeyihiin weyn baan ahay waa dareemay laakiin sameel khaldan baan aaday nink waxa la yiraahdaa habeenkaas odaygu waa joogay laba xaniyood dhalay nin raayuliga hayareysan saas intuu u fiiriyay buu hal xabo hees oo macaan oo farxiifiska ugu talagalay buu qac ka siiyay waa heesta farxiifiska soo jiidatay oo go'aankeeda iyo maskaxdeeda bedeshay oo hawsha fuudeysay baa lagu leeyahay maysan dogan dhulkana wali kuma dhaxaraga ayuhu wali maysan dogan dhulkana wali heestaas markuu qac ka siiyay ilaa wiil romantic ah wallaan dheer banaan degay waxaan ku hawshiba waa isku daba dhacday meherkoodina qarac waxaan ku yiri reerka lagu nastay lagu nagaado waa la saxiixayba ya salaam waayahay Soomaalida marka arooskii qaabo kala duwan baa lagu falceliyay qaabo kala duwan baa loo soo dhaweeyay waxa isla fiirinayna boostiyadii iyo qaabkii ummadda Soomaaliyeed ay uga falceliyeen waayahay boostii koobaad ee qosolka iyo qosliye ilaa iyo qosliye wuxuu taagan yahay nin macruuf xaaji dhahan saaxiibkay ah October ma ahane xitaa Mars iyo Abriil ha guursato fiska iyada waxeeda leh maybe bol معروف حاجي صاحبك أنا صفك ما كنت معنا محاوي مارتي أبريل إيو حوجها بوستي أو مسير وكسر عرفايا ماشي سوى وضع معروف وحالك جد هيركو عصب سودوي وياي إذا سوى كلام معروف هبين كاس وذيك نبر باكل عاد أقول إلى كل عاد وحكود دريميسها أردت كان بدنا ويري وحي سميين معناها صور ورد ستايلكي هيكل سومالي هالقول سومال لاني كور مرتبين واقرتي بشير هنوني نجم نشاط هل هل بعيارت ليني كان باك بالاسمي بشير هنوني اسمي marka dacaayada meesha ku jirtaa waxay tahay Soomaaliya la beesay kullihiin labi hal waay dad miinas waxay ka wadaan macnaha farxiifiska waxay guursatay Mubaarak macnaha waxay taageeyeen Soomaaliya saas labi hal ciyaarta ku marinaysay taageeyeen macnaha maadaama farxiifiska wax guursatay taageeyeen waxyaalihii ay qosolka ama faniga lahaa ee arooskaas laga soo calaamadiyay saaxiibkii Maxamed Fatxi wuxuu ku leeyahay waagi hore wixii ahaan jirtay nin ku dhali kara ku dhaqi kara hadda baash waa la update gareeyo ku leeyahay waxaa laga dhigo ku leeyahay ilma aad dhali karto baad dhaqan kartaa macnaha Soomaali wuxuu Soomaali taxawa baash dhan waa la bedel macnaha update lagu sameeyay waayahay Cabdullaahi Mani wuxuu leeyahay qalbiga haday ilama joogo waa qisa dhaba raantii aniga aad i qusaysa qalbiga haday ilama joogo xataa ismooga hadeerba baraha bulshada Soomaalida caaw waxa qabsaday hambaliyada arooska fanaaniinta Mubaarak October iyo farxiifiska qisadooda jecel maxaad ka ogtahay maxaa xilligan ku soo beegay oo waxay jawaab cad u tahay arooska seegeedii hore ee Bashiir Hanuuniye
iyo gacalisidiisa Najmi Nashaad si muuqaalka hambalyada arooska lamaanayaashan xisaab ahaanta kala fog ay